maarso waxaa noo yimid Fidel Castro intuba waxay u socdeen war dagaalka ka jooga oo Castro waa yimid meesha waa yimid war dagaalka jooga intuba minuteskoodii baan helay wadgoorni maxamed siyaad markuu la fariistay habeen buu yimid isla habeenkiina waa dhoofay xilkiisii buu ku waayay socdaalkan ninkaas waayo socdaalkiisa Tanzania ku shirayay kula shirayay mase Zambia iyo dawladaha frontline-ka South Africa markaas Afrikaanka wuxuu Maxamed yimaado ma ahayn wuxuu ugu tagay in uu Afrikaanka tala weydiiyo war dagaalka halkan ka soo kulul dagaalka wali ma dhicin laakiin saasaantaas yaa xaq leh kulligood waxay isku raaceen Soomaaliya duulaan iyo gardarro iyo wada golaha dhexe xisbigii shuuciga Soomaaliyeedka guddigiisa siyaasadda 17 nin bay ahayd meesha annaga 5 nin ka 17 kan nin 2 nin baa noogu jiray oo Soomaalida jeclaa aniga maadaama aan Soviet Union wax ku soo bartay taariikhdaasna aan aad u jeclaysto daba galay waxa aan hubaa 2 nin oo si gaar ah inoo jeclaa jiray حتى marka hubkana la siinayo ninkaasi wixii lagu heshiiyay waxaan aan ahayn oo suubisa oo lagu soo diray jiray wuxuu yiri waligiin xasilooni helimaysa afari todobaatankii oo waqti nabadda meeshii ugu fiicnaaday maraysay aanu gaardinayno aanu heesayno olole aadayno ma sha Allah isku duba dhacsanta waqtigaas waxa weeye aan kuleeyahay ururka midowga Afrika labadii xil ugu sareeyay inaan qabsanaan damaanay maantana adoo xaq u leh oo doorkaagii yahay baa lagu dhaafinaya igad maaha oo igad oo dhowr dawladood oo xaq u leh doorkaagii baa yimid waa lagu dhaafinaya waqtigaas wuxuu leeyahay waligeen xasilooni helimaysan maadaama nimankan fursad bay u helaan adduunkii inay curad u noqdaan adduunkii bay maamulanayaan marka Soomaaliya waxay ka rabeen sida dawladaha khaliijka markaas qadiyada khaliijka tanba kala weyne ka muhiimsanay ay khaliijka lagu ma noolaan karo air condition iyo waa halkaanse badweyntii baa ku taal biyihii xareedaha baa dhulka hoostiisa buuxa خضارتي فريش كأهب يعني الإسلام هي الكرم وقصة هل كان يدنين أي المريكان مشاريع وين بيقضي ياريا لا تكا أهراتان كله فرني وحكم إذا انقلاب كي صوماليا كدعي نروشكو فرتمين أيه وحكم إذا عبد الرشيد على شرماركة مركل الدلي شانية طوانكي يوكوي لاتنكي أيامها أولي حيي شنطة بريولة ها روش وحو صادر التعسيدة إنا كقب قران أفر شنن أو ذا كي جيبيا دولة دي كالسعودان لكن هو مخابرات وأنا من كي هو شام أبقين بي وحا مدحكاها نين لدوها ألييب أذربيجان نينك هد مدحوينها كا أبيس فشنطة نين هو قامين أي عبد الرشيد إذن كحوق الدالكا جعلا عبد الرشيد بان قبانا يا حرايا أفقين واسمين إذا كما يالين هول سعون كدما ها مركي هور عقال هلا دلا لا يري waxa la yiri ninkii baa nool hadii cigaal la dilo kana nool mid kala keenaya saraakiil dambi laga galay baa jiray oo dagaalka hadda matalan nin hargeysa lagu toogtay maxamed maxamuud dhowlawaaba la gashaan loo general inda qarsho wuxuu igu yiri oo waliba hadalkaas waan ka duubay markuu ii waramayay inda qarsho wuxuu kamid yahay ragga bilad sharafta ku qaatay dagaalkaas bilad sharafta koowaad ragga ku qaatay kamid ah aniga yaa ii tilmaamay inda qarsho salxaan baa ii tilmaamay ma taqaan buu yiri inda qarsho ma yaqaan raadsu yiri jigjiga dagaalka ka dhacay taariikhda Afrikada madow kama dhicin meel uu ka dhacay ma jirto markii laga reebo saxaraha carabta dagaalkaasi guusha Soomaalidu ay heshay raggu waa wada mitireen buu yiri laakiin laba nin
baan abaalkeeda siin lahaa buu yidhi wuxuu yidhi bilad sharafta aan qaatay ilaahay magaciis baan ku dhaartay isagaa iga mudan laakiin ayaan daro waa la toogtay gacan Soomaaliyeed buu ku baxay inkaartii halkaa ka dhacdayna intayan ummadda Soomaaliyeed gaarin xooga dalka Soomaaliyeed bay gaadhay Maxamed Sheekh Cabdi Dawdi wuxuu ahaa ninkii ugu horreeyay hogaaminayay guutadii ugu horreysay oo dagaal ka gashay ilaa iyo wuxuu gaaray dirada Sheekh Xuseen Baali ninkaasi inta dagaalka ku jiray sanad iyo intee bilood kaade September sanad iyo ziyaado ku jiray dagaalka ku jiray ala soo qabtay 20 jiro baa la geliyay 20 jiro waxa aad qabowdaa naftu ay khushuucdaa marka aad quraankiyo qowlka iba barateed qalbigaaga galisa ubadkood qurxisood qowlka iba bartaad qiimaha adduunkiyo aakhirana ku ceeshta qaar kalena ku darso qowlkii nabiga Allahumma salli ala Muhammad alashan xadiiskiyo fiqiga funuun kale ayaad faa'iideysaa madrasada macallim quraan online oo dhowr iyo 10 sano jirtay waxa wax ka dhiga macallimiin khibrad dheer u leh qaabka ugu fudud ee wax loo baro caruurta qurbaha ardaydu waxay casharada ku qaadan karaan qaab online waqti kasta iyo meel kasta oo ay caalamka ka joogaan macallim quraan online waxa lagu bartaa xifdinta quraanka kariimka farbarka ilmaha barashada xadiiska fiqiga iyo culumta kale ee islaamka wixii faahfaahintaas dheer kala xiriir telefoonada shaashada ku xaran marka walaale nuurow dagaalkaasi waa raasumaal taariikhda sideedaba intaad ka gudbin intaas oo nin oo aad la kulantay oo fakshino kala duwan kaga jiray dagaalkaasi xogta ay ku siiyeen ma isku wada ekayd mise wax kala duwan oo midba horta nin waliba waxaan wareysan jiray qaybta isaga oo dagaalka ka galay bes wax inta isaga ahaa hada Axmed Salebaan Dafle waa wacay waxaan irinayow waxaan ka rabaa inaan ku wareysto maxaad iga wareysan buu yiri waxaan nolol aad goobjoog u ahayd qaybtii adiga aad ku lahayd waxaan aan ku sheegayaa ma ihinin dhiisha u soo cushay kacaankeeni inuu amaano mana ihi nin inuu ceebihiini fago iyadana dhiisha uma soo culan Allah igu sima waqti kale laakiin hadda waxaan ka rabaa dagaalkii 77 doorkii aad ku lahayd aan ogahay inaadan battlefield-ga ku jirin laakiin doorkay arinta adiga doorkaagu hagee joogtaa buu yiri Sweden baan joogaa bas waa ii dhowdahay telefoon igu wareysanayay horta isukay sheeg buu yiri waxaan ninkaas ay dhalay waa garanayaa buu yiri abaha si fiican baan u aqaan iimo waa u tagay waa soo dhaway sirradan nimaale oo aan jeclaystay ku igu waran marka sarkaalka markaan ka dhamaysto bilow ilaa dhamaad su'aalaha aan ka rabo waxayga markaan isku laabtaan dhahaye wax kale ma ogolaanaysa marka waa shaxada fursad weey waa shaxad kale taas haduu markaa idiido okay weey marka waxyaabaha aan weydiin jiray waxa kamid ah maxaa khalada oo dagaalka aad ka aragtaa maxaa sax ah oo aad ka aragtaa laba yu qaybsanayeen marka qolo waxay dhahayeen dagaalkaani wuxuu ahaa halgankii SYL ay qoratay oo shanta Soomaaliyeed oo jiilashu ay isku soo dhidhiibeen dhamaystirkiisa shan Soomaaliyeed baan ku raadinay qolo kale waxay qabaan ma aha ciidankii Soomaaliyeed xooga dalka Soomaaliyeed baa si xoog badan u dhismay wuxuu yeeshay rag akadeemiga dhalinyaro badan oo saraakiil junior dhalinyaro hadda nin baa wuxuu yiri waana la musaafiriye matalan ya nin kamid ah ragaas tabeelaha Qaahira ku sawiran waa layna musaafiriye ruushka 4 sano laynoo diray waxbarasho waa musaafir ciidamada laynaga dhex saaraya xagga layna geenaya 4 sano dawladdu waa shaqaysanaysaa ma garatay khalal ku yimaada iyo
waxaasay diidan tahay laakiin annaga waxbarashay noo noqotay buu yidhi waa ka faa'iidaysan dad akaademiga oo tacliin sare helay baanu noqonnay soo saa ma dhicin markaan soo laabanay waxaa la yidhi dharkii jabhadda gashta sida askariga jabhadka ah waa nin 3 bilood wax la baray u dagaalama qofka bani aadanka ana waa resource waa la kaydsadaa dadkaas oo kale marka rag badan oo qiimo leh baa saa halka ku baxay marka cabsi baa jirtay way yiraahdeen tilmaamaysay in dawladdu ay ka baqaysay in xooggan abuurmay dawladda dib ugu soo noqdo waana ku soo noqon lahaa buu yiri niman dhowr oo ii warramay waxay dhaheen ciidankan dhismay waa ku culus yahay in hoggaan ay u hayaan nimankii marka hoggaanka hayay iyadoo raggaan ay joogaan waayo liidarkooda iyagaa la soo bixi lahaa tusaale matalan maxamed siyaad barre aqoontiisa boolis bay ahayd military ma ahayn sarkaal boolis ma garatay marka tiradiina waa bateen ciidanka badda keliya waxay yeesheen 300 oo dhalinyaro oo akaademiga oo funuunta marine biology iyo maritime funuunteeda kala duwan ciidanka cirka sidaas oo kale ciidanka difaaca cirka sidaas oo kale noocyadii ciidanka dhulka sidaas oo kale ardayda waxaa la qaadan jiray kuwa ugu buundo sarreey markaas caafimaad haddana la marin jiray aqoontii sidaa ahayd ruushkana wuu noo hagarbaxayay oo wuxuu ku talagalay siday u dhisan yihiin dowladaha waarso leebelkooda inuu na gaarsiiyo waana ku soconnay tusaale matalan dayuuradaha Sukhoi 23 MiG 23 waa noo soo socdeen marka dagaalka uu dhacayo 8 nin oo dhalinyaradii bayloodyaasha ahaa buu qaaday oo soo baray oo soo diyaariyay dayuuradahaasna waa dayuuradihii ugu dambeeyay ay Poland iyo Hungary iyo ay haysteen Romania Bulgaria Ukraine dawladii u dambeeyay ruushka u siiyay boosaas anana waana la siinay levelka aanu ku soconaa mar nimankaas waxbarashadii waa soo dhamaysteen xamar bay ku soo laabteen dayuuradihii maraakiib baa lagu keenay iyagoo qayb qaybihii u muhiimsanaa oo motorka uu kamid ahaa waa la keenay bakhaarey noogu jireen dagaalkii baa dhacay Soomaalida warka jooga waa diidnay maraakiibtii oo soo socda baa badal laga celiyay kala firay nin la yiraahdo Ciise Soofe Durraan oo wuxuu la dhashay garaadkan hadda ina Soofe Durraan ninkii garaadnimada kaga horeeyay walaalkiis waa dhaweed uu dhintay ciise wuxuu iga sheekay wuxuu haystay hoggaanka xiriirka dibadda ee xogga dalka sarkaal buu ahaa raggan la kulmay buu intaan ku sheegay waa ka badan yihiin raggan la kulmay wuxuu yiri hoggaankaasaan haystay dawladuhu waxay ahayd inay noo soo dhamaystirmaan bishii April 1977 dalabka xafiiskiisa ka baxa markii wax imanayaan isaga qaabila April bartamaheedu ballantahay April 77 laakiin already laba guuta gudaha ku jiro diriraya ruushku waa og yahay guutadii saddexaadna markaas la qalqaalinaya waa jabhado ciidankii ma dhaqaaqin laakiin ciidanku uu isu diyaarinaya inuu dagaal qaado waxa soo dhan la socda ruushka sidaa darteed baa sanadkaas 3 bilood ugu horeeyay bishii koowaad January waxaa noo yimid madaxweynihii ruushka Andrei Podgorny wuxuu ahaa Andrei Podgorny bishii labaad waxaa inoo yimid ninkii ku xigay East Germany Honecker buu ninka hogaamiye xisbigooda ahaa ninka labaad security-gana haysta magac buu lahaa
wabdi shanina oo hogaaminayo January February Marso waxaa noo yimid Fidel Castro intuba waxay u socdeen war dagaalka ka jooga oo Castro waa yimid meesha waa yimid war dagaalka jooga intuba minuteskoodii baan helay wadgoorni maxamed siyaad markuu la fariistay habeen buu yimid isla habeenkiina waa dhoofay xilkiisii buu ku waayay socdaalkan ninkaas waayo socdaalkiisa Tanzania ku shirayay kula shirayay mase Zambia iyo dawladaha frontline-ka South Africa markaas Afrikaanka wuxuu Maxamed yimaado ma ahayn wuxuu ugu tagay in uu Afrikaanka tala weydiiyo war dagaalka halkan ka soo kulul dagaalka wali ma dhicin waa saas laakiin saasantaas yaa xaq leh kulligood waxay isku raaceen Soomaaliya duulaan iyo gardarro iyo wada laabashadii uu ku laabanayay Moscow bu transit aan lagu talagelin halkan ku soo maray xamar ku soo maray hamsiyad kaliya sarkeen nin kale oo shantii guddigii siyaasadda ku jiray oo xataa ka warqaba dhacdadaas ma jiro aan weydiiyay budgoorni hal mar buu yimid weedha April 20 ma imaan laba mar buu yimid waan ku iray hal samatar baa kamid ah adeer laba mar buu yimid ma imaan adeer xasuustaada dib u noqo ma jirto macnaha shirkan lama wasa anigu documentskan waxaan ka soo helay East Germany markay burburtay arkiibkeedii وانا هي يضو قراله محمد سياد يبغورنا يكون هذا قد من السؤال محمد يسك كليه سركن بدغورني يا مدحوينه كليه سركن ولا مدحوينه waa ka qariye gudiga shan golaasa marka sababtaas ba ciise soofi wuxuu yiri maraakiibtii waa noqday waqtiga aan sugayay dayuuradaha inuu la wareego qalabkii ka dhinna ma iman أنا تجيب ويري وحنو تجي كالجر على تاجك روشك سفارة الروشك فنية أوي عرفتي وصوت هذا محادعي ما هي مراكب القصة قاعدة اللواجب هي راكبت السوق هذه لها ولا اللواجب معناها مركا أدير وحن كوكي أنا الشيء كلاس دجال كاسي وحوها دجال سد حجر له حجر كاستوبه سيدة إنه تحليليه حقل والسوفيت يونيون يدور كي كلها حقلنا وأمريكان يدور كي كلها حقلنا ولبدان غير ودري هل حقل بان مسكونا واحد قال لما يلبدان غير مركا هذا أوكي صدق ذا حقل مركب لا يركل قادنا السوفيت يونيون حقش على هاي محيه سوفيت يونيون حق الشيء دغالك قبل بابات السعودية قصة ما لبضن كغشي كيبان وقصوا علينا يا صومالي السي أما ما لك على أي قادو أي ينقال عبد موسى اللهم حسبان للشيك استي وحيري ninka wasiirkii difaaca ee Ruushka xilligaas midowga Sovieti isla markaana ahaa taliyaha guud ee ciidamada midowga Sovieti isla markaana ahaa isbahaysigii Warsaw ninka odaga waa Soomaaliya hal mar yimid aad buu jeclaa Soomaalida sideedaba golaha dhexe xisbigii shuuciga Soomaaliyeedka guddigiisa siyaasadda 17 nin bay ahayd meesha annaga 5 nin ka 17 kan nin 2 nin baa noogu jiray oo Soomaalida jeclaa aniga maadaama aan Soviet Union wax ku soo bartay taariikhdaasna aan aad u jeclaysto daba galay waxa aan hubaa 2 nin oo si gaar ah inoo jeclaa jiray حتى marka hubkana la siinayo ninkaasi wixii lagu heshiiyay waxaan aan ahayn oo suubisa oo lagu soo daray jiray waxa la yiraahdaa Grechko Marshal Grechko weeye ninkaasi
xamar dhowr beri buu joogay wafdi ballaaran buu leeyahay waa marka keliya uu inoo yimi 77 waxaa nalooga raadiyey labadii aan ku lahayn meesha oo na difaacayay yaa meesha ka baxay laba Itoobiya difaacayaa jiray marka ilaan meel walba raggu iyagoo meel wada socda haddana waxaa jira tendency miyuula la kala leeyahay labana annagay dhankayla jira labada dhanka Itoobiya marka labada dhanka Itoobiya jira waxaa ka mid ah Suslov nin la dhaho aninka ideolojiyada u qaabilsanaa midowga Soviet marka Grechko markuu inoo yimid ba wuxuu yiri badda liida haligeeyo ha badda inaan soo dabashaan rabaa maanta badda lageeyo goor duhur la qadeeyay markuu kasoomihi isku soo reebo oo ordo baddi orod ku galay waa la dhinac yaacaya marka saraakiil Soomaaliya iyo kuwo isaga ilaalinaya iyo group baa leeyahay goor baddi meel uu boodi karo gaaray buu inta boode qoosay soo ma qoosay madaxu la soo baxay markaasuu dhawaaqay oo yiri NATO ma og tahay in Marshal Grechko maanta uu ku qubaysanayo badweynta India NATO ma og tahay badweynta India waad aragtay intay la egtahay adeerweynankeeda imise dawlad baa ku soo hareeraysan soddon hadday ka badnayn waa gaara 40 bay ku dhow badda intaa la eg ninkaasi rag baa ka hortaagnaa awoodu ma lahayn uu ku galo waa saas ma garatay albaabkaanu u furay marka annaga albaabka intaa la eg jaaniska intaa la eg markaad bixinaysid masdifaaci kardha ilaan ciddi kalaad ka caraysisay waa saas oo Mareykan kula jiro iyo reer galbeed adduunyadii baa lagu tartamayay ma garatay marka iyagu taasay lahayn geopolitics inuu halkaas fariisto geeska Afrika waa albaabkii laga gelayay qaaradda Afrika waa meeshuu ku jebinayay boqortooyada Itoobiya oo Itoobiya inay gacanta u gasho fursadaas annaga door weyn ku lahayn waa mar saddexaad ganacsigii adduunka baa wuxuu maraa Khaliij al-Adan gacanka cadmeed iyo Baabil Mandab bal inta geostrateejiyad oo gacanta ku dhigay kaliya inuu Soomaaliya helo intay la egtabalay berberu saldhig ka dhigtay wuxuu dhigtay raadaar markabka badda Mediterranean-ka soo maraya goortu Janaal Suways saa u soo galo ishu ku haya gantaalkii uu la dhici lahaana meeshu keensaday khatarta ay maraakiibta maraya badda cas oo dhan ishu ku haya badda cas oo dhan maraakiibta maraya saldhigii berbera laga dhigay marka dowrkaasuu ku lahaa ninkan ruushka deegaanka way angalka kale waxaa tiri Mareykan baa laha haye Mareykan hadda istiraatiijiyadaas uu dalka leeyahay darteed Soomaaliya waxaa la dhahaa ahamiyadeeda laba qayb weeye qayb waa geostrategy baa la dhahaa waa politically buu dalkan wuxuu u yahay dal highly strategic ma jiro dawlad adduunka hana qaada oo aan isha ku hayn adduunka dawlad hana qaada oo aan isha ku hayn bal India isha nagu haysa oo China nagu haya Norway baa nagu haysa oo Sweden baa nagu haya Talyaani baa isha nagu haya oo German baa nagu haya Ingiriis baa nagu haya oo Canada maxaa keenay sababta waa positionka istiraatiijiga aanu ku nool maxaa taa weheliya geo-economy ninkaan hadda ka sheekeynayay Marshal Grechko waa cadda wuxuu iga sheekeeyay galab Villa Baydhabo lagu soo dejiyay oo gacanta markaa laga qaaday wuxuu yiri weligiin xasilooni heli maysaan
todobaatankii oo waqti nabadda meeshii ugu fiicnayd ay maraysay aanu gaardinayno aanu heesayno olole aadayno maasha allah isku duba dhacsanta waqtigaas waxaa weeye aan ku leeyahay ururka midowga afrika labadii xilo ugu sarreeyey inaan qabsanaan damaanay maantana adoo xaq u leh oo dowrkaagii yahay baa lagu dhaafinaya igad maaha ooyo igad oo dhowr dowladooda oo xaq u leh dowrkaagii baa yimid waa lagu dhaafinaya waqtigaasu wuxuu leeyahay weligeen xasilooni heli maysaan waayo dadku markay koran yihiin adeer iyo ilmaha yar iyo adiga isku garaad ma tihin cunugaaga yarka oo 10 sano jira isku garaad ma tihin ummaduhu saasayaan isku garaad wahayn ninna goloobkii oo dhan buu inta soo dhiganaya ka xisaabtamaya ninna qarankiisii uu gaari la'yahay heer qaran sidii ciyaalkii gobol iyo reer iyo wax hoose deeqa wuxuu yiri weligiin xasilooni heli maysaan maxaa dhacay baa iri 3 sabab mid waxay tahay waxaad ku taaliin degaan very highly strategic ummadaha dhan isha idin ku hayaan ummadihiina heshiis ma taa macnaheedu waxa weeye meeshaada lagu hardamay xagee nabad ka helaysaa marka labadii maroodoo diray coos baa ku baabaan maamaadii soo xiligahay ya tan labaad highly geo economy wixii bani aadanka rabo dhan baad haysataa wixii bani aadanka rabo dhan yaa haysataa 12 item oo waxaa jira Soomaaliya mid walba sanadkii billions laga sameyn karo mid walba hal mid bay Soomaaliya waxay gaarsiin kartaa hal item nolosha ay ku nool yihiin boqortooyada khaliijka dowladaha ma aha shacabkooda boqorada khaliijka 12 item item ma lagu daynaya marka tan saddexaad garaadkii lagu ilaashan lahaa ma haysan naalkii baa saa kuugu sheegay laakiin wuxuu kuugu sheegayaa simbatiya u nooyay ma kuwa kale waa kaa qarinaya marka adeer Mareykanku isagaa ku soo horeeyay deegaanka xilligeena kumeel gaarka ahaa dowladda Talyaaniga isagaa culays saaray in iyada ay gobonimada gaarsiiso 10 sano John Kennedy waa ogtahay sidoo Cabdirashiid u soo dhaweeyay 61 December wuxuu yiri wiilkaas Horn Africa Rearmament masterka ku qaatay waxaan ka akhriyay inuu yiri labada mas'uuliyad dhalinyarada oo kulankii buu ka sheekeynaya da'doodu wuxuu ku soo qoray 2 qos dhexdood anigu markaa da'dooda ma aqoon meeshan ka arkay halkaas markii ugu horeysay 43 buu John Kennedy jiray Cabdirashiidna 42 buu jiray marka laba mas'uul hal sano oo dhalinyaro ah 40 jir nin weyn ma midba midka kale simbatiyo u qaaday simbatiyo xoog leh iyo u qaaday fadhigaas 20 daqiiqo ahayd John Kennedy 3 jeer buu wuxuu yiri waan ogahay inaad Irishka Afrika tii 3 jeer Irish waa dad isla weyn waa dad geesiyaal waa dad ka qurxoon Ingiriiska kale waa dad suugaan yahana saga Irish John Kennedy Irishka Afrika inaad uu amaanaya moogta amaan bay ka tahay waasad hadalada ku hadleen oo meesha aan ka akhriyay waxa kamid ahaa hubka Ethiopia siinaysa waanu dhifsanaynaa buu yiri Cabdirashiid Baarana dadka Soomaalida Ethiopia ku noolna culays ku nool annagana culays ku nool wuxuu yiri amnigiina annaga damaanad ama hubkan amalna siiya buu yiri aan shaqo ama joojiya amnigiina annaga damaanad qaadayna buu yiri Mareykanku Soomaaliya marka waxay ka rabeen maadaama nimankan fursad bay u helaan adduunkii inay curad u noqdaan adduunkii bay maamulanayaan marka
soomaaliya waxay ka rabeen sida dowladaha khaliijka markaas qadiyadda khaliijka tan baa kala weyne ka muhiimsanay waayo khaliijka laguma noolaan karo air condition iyo waa halkaanse badweyntii baa ku taal biyihii xareedaha baa dhulka hoostiisa buuxa khudaartii freshka ahayd yani laislama heli karo mawqifka halkaanay danaynayeen maraykanka mashaariic waaweyn bay u diyaariyeen laadka raataan ku dhufanay cabdirashiid wuxuu yidhi haddaadan siinayn markay fadhigii ka kaceen xafiiskiisa intuu isii socday John Kennedy baa ninkii la taliyaha u ahaa adduunka la taliyaal baa taliya qof ma taliyo ninkii madaxweynahan suuqu ka yimid sanooyin buu joogaa iska tegay waxa lama socdo kan la taliyaha lagama joogayo kan la taliyuhu wuxuu ku yidhi ninkan dalkiisa iyo dadkiisaba soo jiidashay leeyihin waxa uu naga rabo ka waran haddii qayb ka mid aan siino markaasuu yidhi Mr. President idhageyso waxuu naga rabo haddaan siino kenyana nus buu qaadan etoobiyana nus buu qaadan ma garat oo isaga cabdirashiid markaas halka aadaya maraykanku marka wuu aad bay noo rabeen laakiin barnaamij iyaga u degsan bay noo rabeen annana nimankaa geelijirta abaan nahay geelijir maxaa ku taqaan isla weyne waxaan ba isaga maxamed ibraahim cigaal baa waxaa laga sheegay nin ingiriis oo la taliya u ahaa cabdirashiid oo markaa la socday baa wuxuu ku yidhi intuu qayliyey cabdirashiid wuxuu yidhi Mr. Prime Minister ninka ka hor fadhiya waa United States of America madaxweynaheedii ma garat annagaan saa ula hadli karin aada ula hadlaysa markaasuu yidhi annagu ilaah baan ka baqnaa qof kalaan ka baqno kii ingiriiska ahaa khabiirka ahaa baa cigaal u sheegay ninuu cigaal u sheego hadda Canada ku nool waa sheekada ii sheegay cajiib waaye qaybta waa soo gabagabeynaa doctor aad baa umahadsan tahay su'aalaha ugu dambeeya waxaa ka mid ah ma jirtaa inta aad xogtan baaraysay xog la qariyey oo dagaalkaas iyo dirirta Soomaalidu gashay Ethiopia ay la gashay ku saabsan xogaha mudda la qariya waa dawladii wax qarsanaysa annagu waxayni waaba iska burbureenba xogaha la qariyo hadda dagaalkii 40 sano ka badan baa ka soo wareegatay ruushka wixiisii dibaddu soo dhigay qofkii afruush yaqaana hadda hadduu u tago Moscow wax badan buu ka heli lahaa maraykankana sidoo kale si ay odayday dibadday soo dhigeen wixii xilligaas ah 70kii 50 sano laga jooga waxyaabaha la qarinayo horta dawlad yar baan naho annagu wax weyn oo aan dhaawac u geysanayno xogaheena ma jirto haddii la ogaado laakiin waxaa ka mid ah inqilaabkii Soomaaliya ka dhacay in ruushka uu farsameynayay waa ka mid ah cabdirashiid cali sharmarke marka la dilay 15kii iyo 21kii ayaamaha u dhaxeeyay shanta bari ruushku wuxuu soo diray tacsida inay ka qayb galaan 5 nin oo wada KGB ah dawladda ka socdaan laakiin waa mukhaabaraad waa nimankii hawshan waday afgembi waxaa madax ka ahaa nin la dhaho Aliyev Azerbaijan ninka hadda madaxweynaha ka aabihiis baa 5 nin hogaaminayay ninkaasi wuxuu madaxweyne ku xigeen u ahaa Gorbachev markii uu dalcay meeshuu gaaray wuxuu madaxweyne ku xigeen u ahaa Andropov wuxuu madaxweyne ku xigeen u ahaa Chernenko 3 nin oo xilka iska dhaxlay isaga dambeeyay qoraal loo qorsheynaya afgembigan hadda waqtigiisii baa yimid madaxweynaha oo nool afgembi ma dhici karin jenaraal maxamed cali sharmaan oo aan wareystay kulliisa hadalkaas uu yiri cabdirashiid ciidanka xooga dalka jeclaa cabdirashiid baan qabanayaa xiraaya afgembina waa sameyn ciidanka ma yeeleen
hawl socon ka dhamaa that's why loo dilay markii hore cigaal hala dilaa la yiri waxa la yiri ninkii baa nool hadii cigaal la dilo kana nool mid kale keenaya ya ruushka rabay totally inuu Soomaaliya la wareego arrimaha soo bixi kamid yahay way Soomaaliya markay dagaalka galeysay si gobolkan caawinayso Ethiopia inuu ka madax banaanaado u caawin karto dawladda Soomaaliyeed ay ku badbaadi kartay ma jirtaa waxa weeye suuragal ma ahaateen waayo meesha waxa fadhiya laba nin oo saraakiil ah sarkaalkuna waxa lagu tababaraa inuu amar qaato amarna bixiyo siyaasad marka meesha ma jirto siyaasaduna waa shay aad u qalafsan Einstein baa waxa la weydiiyay atomic bomb bani aadamkii waa alifay aqli uu ku alifo wuu keenay laakiin aqli uu ku baabi'iyo waxaan maadaama halisteedii la arkay in bani aadamku tirtirmayo aqli uu ku baabi'iyo ma la heli karaa ma yiri maxaa dhacay wuxuu yiri atomic bomb in la alifo aqoon way wada aqooneed baa loo maray ma garatay in la baabi'iyo wada siyaasadeed bay rabtaa aqoon ma rabto siyaasad bay rabtaa siyaasaduna waa ka qalafsan tahay aqoonta ma garatay marka nimankan ciidanka ah waxa la baray amar ninka ka sareeya amarkiisa qaado ninka ka hooseeyana adiga siyaama marka waxaan ka wadaa si looga baaqsan karay 10 siyaabood baa jira maamaha reer mudugo waxa jirta dhahaysa 40 dagaal baa jira aan isku soo boodna ugu liita in la isku soo boodo xabad la isla dhaco wax ka liita ma jiro wax ka liita oo taa ugu caqliga xun hadda Xamaas iyo Israa'iil oo diriraya channels wada hadal baa u socda Sooma Ruushia iyo Mareykan oo Ukraine ku dagaalamaya konton wax oo ay ka wada shaqeynayaan daacad ka yihiin baa jira ay ka mid tahay aqoonta cosmoska gantaal bay isla diraan culumaad soo dhoofaysa culumadii intee u imaanaysa waxbay la qabanaysaa kuwaana dhoofaya ma garat xaggana joogtaa la isku hay marka adeer in laga baaqsado aad bay u qurux badnaan lahayd labada qolob ugu qurux badnaan laakiin waxaa diidanaa xaaladaha lagu sugnaa arrimo kalena waa jireen sheeko dheer weeye nagu riixayay sabab arrimo daakhiliya iyo arrimo khaarijiya baa waa jireen arrimahaas khaarijigana dee dowladda dan kala baa jiray in dagaalka uu dhaco su-aasha ugu dambaysa ee qaybtan aan kusoo gabagabeynaya waxaa weeye adigu markaad researchka hadda sameynaysay waxaad u baahatay inaad arkiifyooyinkii iyo librariyadii dowladaha caalamku aad xog ka raadiso waxaa kaloo khasab kugu noqotay inaad raadiso shakhsiyaadkii muhiimka u ahaa dagaalkan inaad one by one ama qof aad u raadiso hadduu jananadii noqon lahaa hogaaminaysa dagaalka oo mid walba saad isoo sheegtay aad qaybta u ku lahaa isagu aad ka wareysatay iyo hadday noqon lahayd raggii siyaasadda ka hagayay dagaalkaasoo iyadana mid walba qaybtu lahaa aad raadisay halkaa waxaa ka cad inayna jirin wax la reebay oo dadka Soomaaliyeed u qoran oo ay raadiyaan oo lagaga maarmi karo dadkaas in qof loo raadiyo waxay ku dhici wadaas leedahay Soomaalidu inay qorto dagaalkaas oo qof walba iyo taariikhda ku lahaa iyo sidoo ahaa iyo wixii macluumaadka aad u baahatay inaad caalamka u raadsato in Soomaaliya gudaheeda laga helo maxaa diiday Soomaaliya gudaheeda in laga helo runtii dawladdu way isku dayday bilowgii in ila dadkii baa wada noolaa markuu dagaalku dhamaaday sanad kadib hal la ururiyaa la yiri waliba wasaaradda gaashaandhigga maxaa cali samatar 3 sarkaal hadda magacyadoodii ma hayo buu u xil saaray in hawshaas ay soo ururiyaan nin kamid ah wuxuu la dhashay doctor caan ahaayo doctor Yusuf la dhaho TB-da ku takhasus Soomaaliya aad looga jeclaa xamar waagaas 70-aadkii oo waliba la xiray waa tukada baa lagu xiray ninka nin ahludiin oo ahaa runtii shakhsiyaadka sumcadda ku lahaa dalku kamid ah walaalkiisa Cornela
magaciisi maayo waa ka mid ahaa ragga loo xil saaray markay bilaabeen inay ururiyaan oo dadkii ay warwareystaan saraakiishii kollegayaashooda ahaa baa muddo kadib iyadoo meel dhexe la marinayo dowladdu waxay soo saartay in la joojiyo wixii la diyaariyeyna la keeno waa la keenay waana la gubay taariikhduna sideedaba waa raasumaal oo raasumaal jiilka kaa dambeeya meel u yaal wey waa la gubay xoogaadiina waa la gubay sababtuna waxay ahayd goor damba dowladdii waxaa ku dhalatay hadda meesha askar baa iska maamulanaya moogtahay horta wanaagga iyo quruxda aan gaaray waa hagarbax ruushka uu noo sameeyey maahan waa caqli soomaaliyeed iyo dadaal soomaaliyeed ku yimid dadaalkeenna wuxuu ahaa dad leegadii ku soo hana qaaday oo fikrad qowmiyadeed xambaarsan baanu ahayn heesihii aanu tirinaynay iyo markaad fiirisid dhalinyaradii SYL oo lixdanaadkii iyo inta dibadda loo diray soo laabtay iyagoo aqoonna leh fikradii qowmiga ahaydna xambaarsan baa xilaalkii hoosoo dhan qabtay hal mar buu wadankii wuxuu noqday wax ubaxeeya laakiin nimankan askarta ah maamulna meeya noqon xaqiiqatan waana tan keentay bilowgii golaha xogayaasha inay magacaabaan niman aqoon-yahana 9 nin oo mise 11 bay ahayn wasiirka waxbarashada wasiirka qorsheynta siilaanya qabtay wasiirka cadaaladda cusmaan nuur cali qonof nin loo yarahabaa qabtay xasan cali mire waxbarashadu qabtay niman waxay ahaayeen wadamada westernka wax kusoo wada bartay see u dhan yihiin nimankaasaa u caga dhigay sanooyinkii hore administrationkii dowladday ku shaqeynaysay marka waxaa u soo baxay nimankan askarta ah dagaalka intuu socday saraakiil dembi laga galay baa jiray oo dagaalka hadda matalan nin hargeysa lagu toogtay maxamed maxamuud dhowlawaaba lahaa gaashaan loo ahaa generaal indha qarsho wuxuu igu yiri oo waliba hadalkaas waan ka duubay markuu ii waramayay indha qarsho wuxuu ka mid yahay ragga bilad sharafta ku qaatay dagaalkaas bilad sharafta koowaad raggii ku qaato ka mid ahaa aniga yaa ii tilmaamay indha qarsho salxaan baa ii tilmaamay ma taqaan buu yiri indha qarsho loo ma yaqaan raadsuu yiri jigjiga dagaalka ka dhacay taariikhda afrikada madow kama dhicin meel uu ka dhacay ma jirto markii laga reebo saxaraha carabta dagaalkaasi guusha Soomaalidu ay heshay raggu waa wada mitireen buu yiri laakiin laba nin baan abaalkeeda siin lahaa buu yiri waa indha qarsho iyo nin la dhaho gacmo dheer jigjigu ku dhintay gacmo dheer ilaahay baan ku dhaartay salxaan waa ilmeynayay markuu hadalka ay dhahay baar buu aamusay ilin iska tirtiray indha qarsho raadsuu yiri marka waa nool yahay saasaan indha qarsho u raadiyay ninkaasuu iga warramay markii taariikhdii dagaalkaas intuu isaga ka qayb galay ii sheegay wuxuu yiri saraakiil hargeysa lagu toogtay ma taqaan buu yiri nin la dhaho catiir naanaystiisa catiir la yiri waxaa iri ma aqoon ma maqashay waa maqlay magacaas waa haya maxamed maxamuud dowlawa wuxuu yiri bilad sharafta aan qaatay ilaahay magaciis baan ku dhaartay isaga iga mudan laakiin ayaan daro waa la toogtay gacan Soomaaliyeed buu ku baxay inkaartii halkaa ka dhacdayna intayan ummadda Soomaaliyeed gaarin xooga dalka Soomaaliyeed bay gaadhay ma garatay marka ninkaasoo kale oo geesinimo bilad lagu siiyo ku dagaalamay baa soo baxay haddana la dilay yaa soo baxay iyo kuwa la xiray waliba waxaa iri maxaad saa u leedahay wuxuu yiri waa iga geesisanaa waa iga askarisanaa waa iga aqoon badnaa mid walba mataali siiyo markaasuu mid walba mataaliga siiyo inuu ka geesisanaa ka aqoon badnaa waa iga aqoon badnaayo
dagaalka marmar baa saraakiishii aagaga la isugu yeeraa waxaa la dejinayaa kaarto talaa la isweydiin tiisaa la qaataa mar walba inuu guulaysto indha qarsho waa nool yahay waad raadin kardhaa waad weydiin kartaa taliyaha ciidanku ka noqday ugu jooga waa allah xafido waa iga geesisanaayo wuxuu waday horin ka mida taangiyadii ugu dambeeyey Soomaaliya T55 waa taangiyadii ugu dambeeyey ee Ruushka uu nasiyo laba urur horin ma hee laba ururkii 32 ka kooban yahay qaybna qoy bay joogaan qaybna koonfur qaybta koonfur buu taliyo wahaa markii dagaalka la aadayay nin kale laga kor keenay sheekooyinka qaar baa qareer oo dadku ay aqbali kareen isaga marka taliyo ku xigeenkii ururka laga dhigay saddex sabab ninkaas isaga kaga lahaa saddex sabab ay tahay baa kuwa tangisto yiri ninkan taliyaha u asay engineer way tacliintiisa wax barasho wallahi generaalka waa weydiiyay adeerow maxaa takhasuskaagu ahaa dhismaha buundooyinka iyo wadooyinka ninkii uu ku sheegay wad wacday ninkuu ii sheegay baan waay takhasuskiisa takhasuska kulliyadu ka soo baxay buu iga sheekay marka waa sidoo ku sheegay sidoo ii sheegay labo xilliga dagaalka lagu jiro marmar baa nin laba alif la ah korneelka ka tirsada kala wareega talada sheeko saasana waa dhacday sida aan maqlay ay iga sheegeen nin baa wuxuu yiri waxaan la socday ciidanka Cabdullaahi Yuusuf anagoo geed baa wax ka celinaya anagoo geed ku hor sheekaysanayna ciidankeena halka jooga dayuurad waxay nagu soo riday wax Ilaahay og yahay nin ma jiraan hogaaminaya xagee controlkii buu ka lumay nin isbatooro oo sharbo waaweyn reer muduga baa yiri waxaasay garaado siinayaan ciidankiiba isaga kala wareegay waa isbatoorka marka wuxuu yiri hadiiba dagaal loo socdo ninkii dagaalka hogaamin lahaa ninkan waa yiri dhowl waaway qodob saddexaad buu sheegay wuxuu yiri garaadaha dadku markay isku garaada yihiin hogaanka waxaa leh ninka istiyaanaha anoo kabtanaya adoo kabtana haddii kabtanimadaada ay iga horeysay markaan shaqo isugu imaano adaan salaadna ku siinaya because waa iga khibrad badan istiyaanaha ninkaana ku horeeyay saddexdaas sabab isaga ku lahaa marka macnaha khaladaadkii dhacay sheekada marka waxaan ku keenay Axmed Sheekh Cabdi Doodina tusaale kale way tusaaluhu waa badan yahay Axmed Sheekh Cabdi Doodi wuxuu ninkii ugu horeeyay hogaaminayay guutadii ugu horeysay oo dagaal ka gashay ilaa iyo wuxuu gaaray dirada Sheekh Xuseen Baali ninkaasi inta dagaalka ku jiray sanad iyo intee bilood كذا سبتمبر صار يزيادوا كجري يدالك كجري على الساقف تي لبا تنجرو بالك لبا تنجرو والله الحرب ديورد اي دريده كسو ردين دريده واتقانا يوم مليون قف زيارته حيل سلاسه وايمان جري سو كفايديسنيا هوشاس sanadkaas marka waxay iska soo hormariyeen dayuurad yar si meesha amnigeeda loo eego waayo madaxweynihii baa marka waxa joogay Tafari Banti mingista wali ma qaban maadaama madaxweynuhu imaanayo mase mingista joogay ma qaale wuxuu diyaaradda sahan bay ahayd pilot Ahmed Basur ma soo ridana markay soo degatay pilotkii iyo engineerkii dayuuradda laba nin wixii waa la qabtay buu qabtay xamar buu soo diray pilotkana maxaar buu ahaa engineerkana Tigray Muslim buu ahaa 20 jiro way ku xiraayeen Hebel Yohannes baa la dhahaa kan pilotkii iyo Ahmed laba qol oo isku dhagan 20 jiro waa ninkii uu ka soo qabtay dirada shaqada ka soo qabtay marka taariikhdii hal qoro hadii la dhaho waxa ka buuxa
sidaasaa loo joojiyey sidaasay soomaaliya ku weyday hantida qiimiga badan maanta weliba oo la fasaxay oo weliba dowladda Itoobiya xataa ay tiri Soomaali qorta taariikhdeena iyo wixii dibadda soo gaaray waxay ahaan lahayd wax lagu dagaalamo miiska la saaro aad iyo aad buu mahadsan yahay Dr. Saadiq Maxamed Axmed Eenow ayuu ahaa qaybta koobaad ee waraysiga intaasaan jeclahay inaan kusoo gabagabeeyo intaan qaybta ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.